السلام عليكم بريها وينو كلا مقرين او برنامج كانوا كنا سفران ku jiray barnaamijkeena isboortiga wax badan oo weyn oo saas oo isbedelay ma jirin laakiin dib been ugu noqonina wixii jira iyo waxa soo socda iyo waxa imka dhacayaba waayahay maxaan ka bilaabinaa la kooxaha waaweyn ee Arsenal Manchester United Chelsea and Liverpool Tottenham kooxahaas oo dhan imika waxa ay ku tala jiraan in ay qaataan ciyaartoy aad u wanaagsan oo mid walba uu dhiso waliba Arsenal sanadkan mataqaana waxay rabto waxay doonaysaa inay koobka mar kale qaato ay labaysato waa eegna inay taas samayso imika nin weeraryahan ay aad u doonaya kadib markii ay qaateen ninka la yiraahdo Bruno ay ka qaateen kooxda Newcastle ay ka soo iibsadeen ninkaasi oo aad loo amaano xagga dhexda aad ugu wanaagsan ayay qaateen Liverpool iyaguna waxay qaateen oo ay soo kireysteen xagga difaaca Konate waa tuu iska tagayo malayn maayo inuu ku raagi doono Real Madrid Konate kaasi Liverpool waxay leeyihiin ilaahay baa naga kaxay Konate markuu tagay markaasi Ronald Araujo ay soo qaateen oo ka soo qaateen kooxda way ka soo kireysteen kooxda Barcelona heshiiska uu saxay sanad buu joogay hadduu sanadkaasi wanaagsanaadana way markaasi waxba noqon doonaa nin markaasi ay Liverpool si haysato ay iibsato lacag ilaa 50 milyan ayay ku iibsan doonaan haddii waa sida ay ku heshiiyeen kooxda Barcelona waxa iyaduna socotaa Bradley Barcola Bradley khadka direenka casbo khadka cagaarka abu taabtay wuxuu yiri anigu meel aan Liverpool hayn qaar baa sheegay wararka howlaha Arsenal baa doonaysa inay khatifto Arsenal taaguma hayse laakiin ninkaasi khadka cagaarka abu taabtay wuxuu leeyahay wax walba kula soo heshiiska ahaa gurigii mushaharkii wixii la qabanayay wixii oo dhan uu la soo heshiiyay Liverpool arrimahaas way dhamaadeen imika waa la sugayaa in ay labada kooxood PSG iyo Liverpool ku heshiiyaan lacagtii lagu iibsan lahaa kooxda PSG waxay doonayaan lacag ciida ka badan oo 150 milyan oo geli ka badan wariyahan ka daay meesha saasi baa laakiin kooxda tan Liverpool iyagu ilaa 100 milyan ilaa 120 diyaar bay u yihiin inay ku iibsadaan Gakpo waxa laga yaabaa isagu inuu iska tago oo Tottenham meelahaas uu qabto ayay u dhowdahay Curtis Jones ciyaarta u dambeysay saaxiibtinimada ahayd ciyaariyeen liiska laguma soo dirin xitaa kuwii meesha fadhiyay laguma soo dirin isaguna inuu xagga Talyaaniga qabto Serie A ayaa laga yaabaa waxa magaranaysaa marka labada Arsenal ilaa imikadaasi ninkii ma helinin Junior Arsenal ninkii Junior baa ka xumaaday oo aad u doonayeen ninkii Junior Mourinho la hadlay Mourinho hadduu wateen sheegnay hadduu mar la hadlo waa finish waqti baa dhamaatay Manchester City iyaguna waxa ay la ogolaadeen 100 milyan inay la ogolaadaan ninka Bonadi oo ninkaasi oo isaguna Bowadi weeyaan ninka reer inanka yar 18 jirka ah reer Morocco ayay la ogolaadeen 100 milyan oo geni miyatro mise waa euro bay magaranaysaa iyaguna diyaar u yihiin inay ka bixiyaan Manchester City weeyaan Ferran Torres oo isagu goolkii guusha u dhaliyay kooxda Spain isaguna Barcelona uu ka tagay PSG ba iyaguna doonayo inuu xagga qabtaa suurtagal iyadana oo xaggaas loo badinaya wararka kale ee Liverpool ku soo kordhay ee waaweyn baa jira kooxdii Liverpool ahayd kishkii faqriga Torresa nimankii adduunka ugu lacagta badnaa ayaa hanti gashanaya boqolkiiba 30 ayay gashanayaan kooxdii Liverpool oo ayo Jeff Bezos ninka Amazon ninka sameeyay Amazon oo bilyaneerka ah waa ninkii abuurayba Amazonka ayaa ninkaasi ayaa imika lacag gashanaya oo kooxdii lacag soo daraya marka kooxdii FSG la oran jiray ee iyadu lahayd Mareykanka ahayd ayaa qayb ka mid ah iibinaysa marka ayaa iibsanaya waxa iibsanaya ninkaasi Jeff Bezos iyo rag kale oo la socda oo uu ka mid yahay nin kale oo isaguna co-founder la sameeyay Facebook ninkii isagu wax ka sameeyay qudhiisu oo isaguna lacag badan haysta ayaa ka mid ah ragga waxa kale ku jira niman kale oo company weyn Lashmas la yiraahdo oo Hindiya oo steelka macdanta baasha biraha la yiraahdo iyo ka baaxushireeya oo billionaire oo lacag meel kala dhigan waayay saddexdaasi oo isbiirsaday ayaa boqolkiiba 30 doonaya in ay Liverpool ay iibsadaan haddii intaasi ay dhacdo markaasi oo Liverpool boqolkiiba 30 ay la wareegaan Liverpool qiimaheedu kor buu u kacayaa waayo Liverpool markii hore kooxdan FSG ee Mareykanka ahi waxay ku iibsadeen 300 milyan iyadoo markaa Liverpool xaaladeedu xun tahay oo liidato oo meel gaari weyday oo bismillaah xaaladoodu meel xun marayso
ayaa ilaahay maraykankan u soo diray 300 milyan lacag badan bay beriga ahayd 2010 marka imika haddii ay nimankani soo galaan ilaa 7 bilyan 8 bilyan ayaa hantideeda noqonaysaa ama lacagta dambeta ay noqonaysaa lacag aad iyo aad u badan nimanka saddexdaa meelood oo tujaarta ah ayaa isugu tegay Liverpool haddii halkaas ku tagaan ciyaartoyga la iibsan doonaa waxaa 200 milyan iyo maxba ma noqon mayso ninka la yiraahdo Bezos Amazon-ka isagu abuuray agtiisa hantidiisa ma taqaan 280 bilyan oo dollar ayuu haystaa hadda waa bilyan maaha milyan beriga horto waqtigii hore markaan oran jiray milyan la dhaafay imika xaaladdu imika waa bilyan barisa war ya alihi war balahat meel trillion baa soo socda isaguna beri dhow haddii ilaahay ina gaarsiiyo intana imika nool trillion wuxuu noqon doonaa halkii milyan kunbuu isaguna geli doonaa waayahay ninkan isaguna Facebook gale wax ka abuuray oo Leo Seferin isaguna waa nin lacag badan haysta 2 bilyan buu isaguna haystaa ayaa waa lacag iyaduna aad u badan qoladan marka Liverpool lacagteedu waxay noqonaysaa mid aad iyo aad u baxda u dheer korodha oo u badata marka mustaqbalka taasina waxay u saahnaysaa in ay naadiyada waaweyn ay la tartanto sida Real Madrid iyo kuwaas oo kale kooxda Barcelona iyaduna Rodri ayay doonayaan iyo Julian Alvarez ayay iyaguna iibsanayaan oo iyaguna meel u yaalo ay doonayaan inay iibsadaan Jose Mourinho ayaa Netflix ku ayuu ka hadlay war ninkii kaas hadal ma daayo Netflix wuxuu yiri war anigu bergi Alex Ferguson uu ka tagay Manchester United waxaan badiyaar u ahaa inaan imaado kooxda Manchester United barka noqdo waan heshiinay buu yiri hase yeeshee mar dambe to ayuu baxay soo baxday kooxdii Chelsea ee tababaraha u ahayd ee labada koob u qaaday baad ka tagaysaa mar qurun baan telefoon u diray ninkii ah Alex Ferguson hello sir anigu ma imanayo Chelsea baan joogaya ninkii maxaa ahayd Alex Ferguson waa ku cadaatay 2013 baa ahayd dabadeedna waa markuu David Moyes uu markaasi oo Tottenham ay joogay kooxda Everton ayuu markaasi u tagay leeyahay oo isku yihiin labadooda waa isku Scottish reer Scotland weeye ninkaas markaa u tagay leeyahay war bal baxad yeesha aniga ibedel saas uu ku taliyay tababaraha isaga ahaa Alex Ferguson oo awood lahaa ma ahayn kooxdii lahayd iyo maamulkii lama weydiin adigu tababare keen baa la yiri isaga keenay David Moyes markuu keenay David Moyes sanad markii intaan uba dhamaysan ayaa xaaladiisu ay xumaatay oo ma garanaysaa ayuu iska tagay dabadeedna Chelsea wuxuu yiri waan mar dambe waa kan hadana yimi Mourinho yimi maxaa Manchester United oo 2016 joogay laakiin problems buu kala kulmay Chelsea markii uu sanadkii uu joogay uu yiri uu qoomamay maxaa ku dhigay uu yiri Manchester United iska qabatay waxa ku kacay ciyaartoygii waxa ku kacay maamulkii waxa ku kacay saxaafadii ya ninkii Mourinho meel uu gol ayuu waayay wato carro iskaga tagay Chelsea oo markaas uu iskaga tagay sidaas ay markaa Jose Mourinho ee ku dhamaatay tagu joogistiisii dalkan Ingiriiska ama dalka England ba saasi ku markaas uu iska tagay oo wato xagga Talyaaniga iyo meel kale iyo qabtay oo imikana waa ka Real Madrid back 13 sanadood ka bacdi ayuu dib ugu noqday kooxdii Real Madrid waa ninka markaasi junior yiri joog ma tagay sida xagad qabanaysa ma Arsenal oo aan weligeed ba koob Europe qaadin ba doonaysa inaad tagto wararka ka joog buu yiri sidii buu ku joogay warar badan oo kale to sport ayaa socda oo dhacaya ayamaha kan ciyaarihii Premier League la Liga Serie A ayaa marnaba inoo bilaabanayaan barnaamijkeena sportiga maanta intaas ku soo gabagabeynaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh